buugga toddobaadkan waxaa loo yaqaanaa how to stop worry and start living. waxaad haysato ku qanac buu leeyahay. cajiib. isagu xalka wuxuu ku ogaaday baarbaaris inaga Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu inoo sheegay in qofku aanu eegin qofka ka sareeya ee uu eego dadka ka hooseeya. taas waxay sababaysaa qalbigaagu inuu dego inaad nimcada Ilaahay ku siiyo ku qanacdid inaad nimcadaad haysatid garwaaqsatid oo garatid. halka laakiin haddii aad qofka ka sareeyo eegtid ama qof Ilaahay u nimceeyay aad indhaha la raacdid wax badan oo noloshaada kamid aad waayaysi. dabcan exactly dhaqankeena imika dariirada balwada le markaad inta badan wareysatay waxay ku oranayaan xaalad adag ay soo mareen oo balwada u leexisay. laakiin marka waxa qofka marka waxa ka khaldamay xalkii qaabkii loo raadinay waa ka khaldamay halbeegii. alxamdulilaahi rabbil aalamiin ثم الصلاة على النبي أكرم مبعوث بخير في أفضل الأمم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى سيكون بلانسانين تضوات كان waxaynu qaadanaynaa barnaamijkeeni nuxurka buugaagta. aan filayo buugii inuu yahay buugii toddobaad ee barnaamijkeena nuxurka buugaagta. buugga toddobaadkan waxaa loo yaqaanaa how to stop worry and start living. buuggan saaci waxaan ka muuqata waxa qoray Dale Carnegie. gaaladu had iyo jeer qalbi aan iyo ruuxaan bay moogtay markooda hore murugo isaga bukaan oo Ilaahay baa quraankiisa ku sheego inuu dhikriga Ilaahay qalbiga qooyo ala bi dhikri Ilaahay tadma'innul qulub. marka sidaba waxaan isku mashquuliyaan ee buuraha la koraan ee khabriga oo cabaan ay kaliisaga noolaadaan ee meelaha saraha dheer isaga soo tuuraan waxa weeyaan murugo haysata. Dale Carnegie marka isagoo ka tixraacay halkaas ayaa wuxuu qoray buuggan loo yaqaano how to stop worry and start living. lamana oran karayo diinteena kuma soo aroorin qofka muslimka muuminka inuu murugoodo xadiis baa nabiga ka sugan Nabi Cali salaatu salaam uu leeyahay uu ka ducaysan jiray murugada iyo xasniga iyo murugada. laakiin qaabka cilaajka loo daweynaya ay ku kala duwan yihiin muslimiinta iyo gaaladu ay ku kala duwan yihiin. isagu marka wuxuu raacayaa habab iyo talaabooyin buu raacayaa. uu leeyahay talaabooyinkaas ayaa qofka uu ku daweyn karaya murugada haysato oo nolol wanaagsan ugu noqon karaya. sidaa daraadeed wax badan waxay adeegsanayaa xeerar uu leeyahay waxa lagu yareyn karaya murugada waxaa lagu noolaan karayaa nolol wanaagsan. insha Allah taala marka waxaan isku daynaa bal xeerarkaas uu ka hadlayo iyo qaabka uu u soo gudbinayo insha Allah taala eegina. wuxuu qaybinayaa buuggiisan Dale Carnegie 8 qaybood buu qaybinayaa ilaa 380 page ka kooban. daawacadan anigu hayo nusqadan aan imika hayo waxay ka kooban tahay ilaa 389 page bay ka kooban tahay 390 page. wuxuu kaga warramayaa qaybta koowaad wuxuu kaga warramayaa xaqiiqooyinka asaasiga ay tahay inaad ka ogaatid murugada iyo walbahaarka. waxa uu leeyahay qofka doonaya inuu murugada ama walbahaarka iska yareeyo waxa muhiim ah buu leeyahay inuu noolaado noloshiisa maanta uu nool yahay. wuxuu magac daray daytime compartment. wuxuu magac daray wuxuu leeyahay qofka haduu doonayo inuu murugada iyo walbahaarka haysta ka adkaado waxa uu haboon buu leeyahay inuu ku noolaado noloshiisa maanta ah. wixii shalay ka khaldamay ama mustaqbalka uu ka warwarayay inuu iska daayo. qaacidadaasna diinteenu inta badan aad bay uga hadashay oo qofkii maanta Ilaahay rumeeya Nabi Cali salaatu wasalaam raaca Ilaahay wuxuu ballan qaaday iimaan khaalis la yimaado. Ilaahay wuxuu ballan qaaday inaanu wax murugo ah dareemeyn mustaqbalkana aanu ka murugoonin wixii soo dhaafay aanu ka murugoonin. la khawfun alayhim wala hum yahzanun bi Ilaahay ku sifeeyay muuminiinta. qaybta labaad wuxuu kaloo kaga warramayaa qaybtan koowaad wuxuu magac daray acceptance. wuxuu leeyahay xaaladda aad ku sugan tahay waxa aad ku sugan tahay aqbal buu leeyahay.
waana xaqiiqo jirto qofku si kasto aanu u dafiro oo u diido xaaladda uu ku sugan yahay oo mar kasto murugadiisa walbahaarkiisu sii farbato haddii dayn lagu leeyahay haddii wax kale ku cusleeyo mushkilad kale ku haysato kow horta marka koowaad aqbal inaad dayn lagu leeyahay inaad xaalad mushkilad inaad problem ku haysto aqbal haddii aanad laakiin aqbalinood khiyaal iskaga noolaatid way adag tahay saad kaga baxdid comfort zone-ka ah murugada inaad saad kaga baxda aad bay u adagta goobada ah inaad murugaysantahay inaad walbahaarsantahay inaad culays ku haysto saad kaga baxda aad bay u adkaanaysaa marka koowaadba horta aqbal inaad xaaladan adigu leedahood ku nooshahay tusaale ahaan haddaad meel ku nooshahay dulmi fara badan ka jiro horta aqbal inuu dulmi ka jiro meeshan inaad leedahay sisi inuu dulmiga inaad ku noolaan kartid isku day marka haddii aad ku noolaan karto markaas xal kale raadso haddii aad dayn ku cuslayso dayn lagu leeyahay horta aqbal in dayn lagu leeyahay laakiin haddii aad u fakertid si qof aan daynba lagu lahaynba oo aad xoolahaaga iska tuurtuurtid egasmensigaaga u farbato marka waxay ku dareensiinaysaa inaad aqbalin xaaladaad ku jirto inaad dayn lagu leeyahay marka waa isdareemaysaa marka wuxuu ugu magac daray wuxuu leeyahay aqbal saad ku aqbasho wuxuu leeyahay marka koowaad research garay buu leeyahay murugada halkay kaaga timid kadib isku dada buu leeyahay filo buu leeyahay wax ugu xun ee kugu dhici karaya marka research garaysid waxa ugu xun ee kugu dhici karaya filo buu leeyahay kadib waxa xun ee aad filatay ugu xun ee aad filatay isku day buu leeyahay waxa inaad aqbashid qaybta labaad isna wuxuu kaga wareemay xeeladaha asaasiga ee lagu lafaguro murugadu kaga waramaya wuxuu soo gudbinayaa ilaa dhowr xeer buu soo gudbinayaa wax laakiin ugu muhiimsan su'aalo qofku is weydiinayo tusaale ahaan wuxuu qofku is weydiinayaa waa maxay dhibaatadani haysta waa noocma kadib dhibaatada markuu ogaado waa maxaa sababay odhanaya dhibaatadii markuu exactly qeexo wuxuu dhibaatadan maxaa sababay kadib talaabada saddexaad wuxuu raadinayaa xalkii markii hore wuxuu leeyahay xalka ugu wanaagsan talaabada ugu wanaagsan halkan aan ku qaadi karayaa waa noocma wuxuu leeyahay waa qaab fudud oo lagu maareeyo isagu ugu magac daray businesska iyo business problemska iyo business riskska waxyaabaha businesska ka dhaca murugooyinka businesska ganacsiga ka dhaca waxa kale oo ka waramaya qayb saxad wuxuu kaga waramayaa qaabkee ayaad uga takhalusi karaysaa murugadaada oo u yareyn karaysaa murugada ku haysa walbahaarka ku haysta waxa uu soo gudbinayaa habab fara badan hasaate waxa ugu muhiimsan wuxuu ugu magac daray wuxuu leeyahay ismashquuli buu leeyahay muxuu ka wada ismashquuli had iyo jeer gaaladu wani horena idinku sheegay murugooyin fara badan ba haysta dhibaatooyin walbahaaro fara badan ba haysta laakiin qaabkii xalka ay u gaariyeen ba ka qalloocsamay مثلا kala way ismashquuliyaan laakiin qaabkii saxda ahaa baan isu mashquul qaacid waa xeerku waa saxsan yahay qofku inuu marka ay muruga qabsato inuu wax kala ku tafaruqo wax kala uu aado sidoo murugada uga baxsado waa xeer la isticmaalo laakiin iyagu waxay isku mashquuliyaan inay buur fantaan inay wax la yiraahdo kalaabiya galaan inay adu waxyaabo xun bay sameeyaan oo isleeyihiin waad ka baxsanaysaa dabcan exactly dhaqankeena imika daliilada balwada le markaad inta badan wareysatay waxay ku oranayaan xaalad adag ay soo mareen oo balwada u leexisay laakiin marka waxa qofka marka waxa ka khaldamay xalkii qaabkii loo raadinay waa ka khaldamay halbeegii inaga diinteena waxayna amartay in marka qofku murugoodo inuu dikri iyo salaad u tafaruqo salaad u banbaxo ilaahay subhanahu wa ta'ala marka culayska iyo wixii haysta uu weydiisto inuu ka yareeyo ducooyinkii nabiga ka soo arooray inuu ku ducaysto oo yaani xaaladda ku jirtid ka bax salaad istaag ama adkaar istaag ama istighfaarta badi marka ilaahay subhanahu wa ta'ala murugadii walbahaarku haysta uu ka khafiifinaya waa is mashquulisay laakiin cibaada isku mashquulisay ilaahay macsiyiisa isku mashquulin wuxuu ka waramayaa qaybta wuxuu kale ka waramayaa wuxuu ugu magac daray mental attitude waxyaabaha qofka arag sidoo adduunka u arkayo ayaa waxay saamaysaa walbahaarkii murugada qofka haysta wuxuu leeyahay qofku wuxuu soo qaadanaya Helen Keller gabadha leeyahay aan idin hore la wadaag jiray indhaha iyo dhagaha laayd wuxuu leeyahay kama dhigin buu leeyahay murugo iyo cabsi kumay beerin buu leeyahay inay indhalayo dhagalayd laakiin nolosheeda qaarkeeda u jihaadmatay gaarkeeda ay u dadaashay buu leeyahay iyadoo mental attitude-keeda ku dhisay inay wax qaban karayso oo wax noqon karayso marka wuxuu leeyahay had iyo goor marar badan sida adduunka u arkaysid ayaa waxay go'aaminaysaa
xaaladaad ku nooshay iyo noloshaad ku nooshay qaabkay tahay waana runtiyo haduuga hadaad ku eegtid diinteena oo inoo tilmaamto hadaad hamigaaga oo dhan adduunka dhigtid ilaahay arrimaha oo dhan buu kala tuuraya dunidana qof iska ciriiri ku nool baa noqonaysa laakiin hadaad u shaqaysatid aakhiriya adduunba waxaad ku noolanaysaa nolol waasaca oo reyn leh qaybta saddexaad wuxuu kaga waramayaa ama xeerka saddexaad uu leeyahay qaybtan ka waramaya waxa kamid ah wuxuu leeyahay cadawgaaga dadku cadow bay leeyihiin cadawgaaga ha isku mashquulin buu leeyahay mar walba ha ka fikirin si aad uga adkaan lahayd cadawgaaga waayo inaad isaga ku mashquulso cadawgaaga ayaa waxay u tahayba isaga wax dhan adigana culays fara badan ay ku saaraysaa buu leeyahay qaybta afraad wuxuu kaga waramayaa wuxuu ugu magac daray ama xeerka afraad qaybta ku jira wuxuu kaga waramayaa wuxuu leeyahay nimcada aad haysato waxaad haysato ku qanac buu leeyahay ajiib isagu xalka wuxuu ku ogaaday baarbaadhise inaga Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu inoo sheegay in qofku aanu eegin qofka ka sareeya ee uu eego dadka ka hooseeya taas waxay sababaysaa qalbigaagu inuu dego inaad nimcada Ilaahay ku siiyo ku qanacdid inaad nimcadaad haysatid garwaaqsatid oo garatid halka laakiin haddii aad qofka ka sareeyo eegtid ama qof Ilaahay u nimceeyay aad indhaha la raacdid wax badan oo noloshaada kamid aad waayaysid waxyaabaha kale oo kaga waramay wuxuu leeyahay isagu wuxuu ku damaysiinaya ajiib isagu wuxuu ku damaysiinaya wuxuu leeyahay Ilaahay bari buu leeyahay laakiin inaga waxay leenahay marka ugu horeysaba ducooyinka nabiga kaleey salaatu wasalaam ka soo arooray ku ducayso Ilaahay bari Ilaahay murugada iyo culayska ku haya ka dul qaado markuu laakiin isagu ugu dambaysiyo meelaha ugu dameeyo ka dhigay runtii de ma waqtiga aynu ugu koobanay waxyaabo fara badan oo diinteena ay ka tiri murugada baanu wadaagi lahayn laakiin insha Allah ta'ala mar kale aan u dhigayna waqtiga ugu yar awgeed waxyaabaha kale oo kaga waramaya waxa kamid ah buuga dhaleecaynta dadka kaaga imanaysa qaabkaad ula macaamuli karaysid isaga yareen karaysid ama aad suu lowsiin karaysid waxa uu leeyahay dadku waa laba nooc unta ku dhaleecaynaya ku eedaynaya inay wax gar ah kugu eedaynayaan iyo wax gar daraan kugu eedaynayaan wuxuu leeyahay kuwa waxa garta kugu eedaynaya waa kugu doonayeen inay ku saxaan marka saad ku ogaanaysaa marka qofka ku doonaya inuu ku nasteexeeyo dadka kale waad ka garanaysaa oo wax garab ayuu ku sheegaya laakiin dadka waxa gar darada kugu eedaynayaan aan gar kugu lahayn ama gar darada wuxuu leeyahay waxaad ka soo qaadaa buu leeyahay si ay waxaan jirin oo kalaaba wuxuu leeyahay isagu wuxuu ugu magac daray wuxuu leeyahay dalaayad qaado si nin qof dalaayad qaato roob dhex soconayo kala noqon buu leeyahay dhagna ka maqal dhagna ka siidaa waayo dadku had iyo goorale qofka haduu bulshada ka dhex socnaado waxa jira wax loo yaqaano dad xaasidaya oo ama si uun inta uu dadka ka dhex socan yahay u diidaya waana wax diinteenu in badan laga reebtay isna wuxuu leeyahay marka qofka hadaad saad uga guuleysatid marka sida ninka dalaayada qaatiro ku dhex soconayo kala noqo kulli waa buug xeerarka ku jira ay iska muhiim iska yihiin laakiin waxyaabaha aan uga baahanay waxa kamid ah xeerarkaas wixii naga anfacay inaan ka qaadano wixii daan naga anfacayna inaan iskaga tagno buug iska classic ah noocan nusxadan haya isagu waa handbook weeyaan oo waa 5 xitaa way ka yartahay inta san jeclaan ku soo gabagabeeyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك